السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أنك دعوانيسان waa Jana Galafour official. hadaan ugu cusubtahay subscribe, like, share, comment inta waa xaqin walaalayaal. qofka binu aadamka walaalkiisa ayaa meel gaarsiin kara. awal shay horta waxa meel gaarsiin kara Allah subhanahu wa ta'ala. kasukun walaalkiisa ayaa garab siin kara. marka walaalayaal subscribe, like, share, comment inta waa xaqin. maanta maxaan idin sidaa rasmi rays oo hees soo qaaday heestaas oo ay ku tooganayso saygeedii hore Cabdi Fataax Farxaan Yare. walaalayaal heestayaan idinka hor dhicine bal waxaad yeeshaan inta daawataan commentiga hoose noogu soo reeba wixii tale iyo tusaale ah. walaalayaal fanaaniinta markay kala tagaan waxaa dhacayso heese in isku soo karbaashayo. marka waxa waaye maalinkii la soo furay ee timid laborka soo duga xaliiri ka faalo ma ka faalo inta laakiin heestaani kaga soo faalootay bal daawasho wanaagsan. Rabooga waan ku eega jiray rabooga waan ku aaminayo rabooga waan ku eega jiray walow ordi jiray ayaa ma dartaa inaad raga dhaafto aad u jeclaa walow aragtidu indhuu tabayeen walow ordi jiray ayaa ma dartaa inaad raga dhaafto aad u jeclaa walow aragtidu indhuu tabayeen walow ordi jiray dartaa walow rabay inaad raga dhaafto indhuhu tabayeen. taasi aad u jeclaa markaas waxay hasaan ku muujinaysaa يعني جعل كذي يصيروا ما أنت نقضي مركا وحوى قف ابن آدم كقلبي ويا كرا لكن قلبه مرجبان يصير لا بسوي أته مركا ولا ليال وحوى رسم الرئيس وحي جذيه كجري يكهل ليسا اللي جوا فيه شيء يطلع برا بعدين مركا هذا يصاب بحنيسا وعك صاب بحنيسا بل إلى الدعوة waayo rasmi rays waxa weeye dadka fanaaniin waxa jiro oo banaanka ka qeyl laakiin iyada heesay ku cabirtaa had maanta waxay noo keentay hees astaghfirullah bal ila daawada hadana heestiyo sii socdo adoon qalmeyn amaanta basho anoo koogeyn inaad bartay adoon qalmeyn amaanta basho anoo koogeyn inaad bartay astaghfirullah intaan ku jeclaa adoon qalmeyn amaanta basho anoo koogeyn inaad bartay adoon qalmeyn amaanta basho anoo koogeyn inaad bartay astaghfirullah intaan ku jeclaa rasmi rays hadda daawanaysid su'aalan ku weydiinaa su-aasha aan ku weydiinayo eberka wuu kala baxaa ado waxaa tiri adoo ii ogeyn amaan anoo ku ogeyn amaanta badsho anoo ku ogeyn inaad eber tahay طيب eberka saddex u kala baxa intees eberka yahay bal noo sheeg bal meeshis eberka yahay jawaabteeda adaa lagaa rabaa waayo eber inuu yahay adaa sheegay wala fi qalbi wala ma bacri qalbaha wala taani jawaabteeda adaa lagaa rabaa marka jawaabteeda meeshuu eberka yahay adaa lagaa rabaa waayo qofku markuu yani kelmad uu ku dhawaaqo waxa laga rabaa ficilkeedii inuu muujiyo haddii laga weydiiyo su'aal oo lagu yiraahdo xaguu eberka yahay maxaa dhigaad rasmi rays heestiyaan idinka dhaxgalin meesheedii nooga sii أنا مدكورة يا أم بدي ستايلكم هذا هين أربع أنا مدكورة يا أم بدي ستايلكم هذا هين أربع
ishaa qalad kale ikaa tustayo ayadoon ku aqoon ayar bogate cishadaan ku arkaan ayaansanahay ishaa qalad kale ikaa tustayo iyadoon ku aqoon ayar bogate cishadaan ku arkaan ayaansanahay adoonu qalmayn ammaanta bulsho anuu ku ogayn inaad dabartahay adoonu qalmayn ammaanta bulsho anuu ku ogayn inaad dabartahay astaqfirullah anaa guurayo mugdi anaa ambad noqdo wixii kaleetana iyadaa noo dhammaystirtay halka aad ka daawanaysaana waa Jana Galafoor official haddaad nagu cusub tahay subscribe like share comment intaba waa xagiini walaalayaal halkaasi waxaan kaga gudbaynaa kistii yarayd ee aan rasmi race ka soo